asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan jimco wanaagsan sidoo kale kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijka idinkula wadaagna sheekooyinka fanka iyo caalamka maxaa ka jiraan waan kusoo qaadan doona wararka koonfur hindiya ka jiro bollywoodka maxaa ka cusub iyo sidoo kale dabcan filimka weyn spiderman no way home ganacsiga taariikhigu maalinta kuwaad gudaha hindiya ka sameeyey saaxiibada qiimaha badan shabakada box office waxay leedahay spiderman wuxuu sameeyey wax historic ama taariikhi ah maadaama maalinkiisa kuwaad uu soo xariyay 33 karoor lacagta nadiifka ah waxbaa u raaci kara maadaama weli koonfur hindiya ganacsiga uu ka sameeyey sixitaan lagu wado overall waxaa muuqata spiderman maalinkiisa kuwaad wuxuu keeni doonaa ama uu keenay 33 karoor ilaa inta u dhexeyso 34 karoor filimkan wuxuu ku bilowday si taariikhi wuxuu garaacay filimkii Surya Vansh oo Akshay Kumar hogaamiyey kaasoo dabcan feestadii Diwali ganacsi adag sameeyey si kastaba aad waxaa leeyahay spiderman ganacsi waalidii wuxuu ka sameeyey dhankaasi markii la fiiriyo koonfur hindiya aad ugu fiicnaa qaybta afindii lagu daawado xoogaa wuu liitay laakiin waxaa leeyahay dabcan lama gaari karo koonfur hindiya wax uu ka sameeyey sida hadda muuqato filimka lagu magacaabo spiderman wuxuu noqon doonaa sanadkan filimka saddexaad ee lacagaha ugu badan soo xareeyay markii la fiiriyo dhammaan aflaanta kala duwan ee gudaha hindiya laga daawaday weli kaalinta koowaad waxaa ku jira Fakil Saab sidoo kale tan labaad waxaa soo galaya master ayaa soo galaya shabakada box office waxaa filimkan wuxuu ka tilaabay dabcan mashruuci ahay Avengers Infinity War oo shirkadda Marvel iska leeyahay kaasoo dabcan 3 sano ka hor soo xareysay diiwaan gashan ama 4 sano ka hor 31 karoor iyo gudaha Hindiya ka keenay laakiin wuxuu gaari waayay filimkii Avengers Endgame oo 53 karoor maalintii koowaad keena dhammaan luqadaha kala duwan lagu daawaday balse ogaada daawadayaasha qamada filimka Spider-Man lagu waxaa qabtay 50% capacity dhankaasi Maharashtra Bombay waxaa la leeyahay hadii Bombay 100% capacity ahaan leed maalin koowaad filimkan 43 karoor ayuu dabcan estimate ahaan keeni lahay saadirta marka 10 karoor ayaa meeshaas kaga maqan culayska ka jira gobolka Maharashtra isku soo wada dub Spider-Man wuxuu sameeyay wax taariikhi ah oo aan loo dhawaan karin daruufta hadda lagu jiro in film dabcan maalin koowaad uu keeno 33 karoor ilaa 4 karoor inta u dhaxaysa maal luqadaha kala duwan waa huge achievement yaa saadirta waxaa laga rabaa Bollywoodka inay hurdada ka kacaan oo ay dabcan sida Spider-Man oo kale la imaadaan big movie kaasoo hindi oo qabsan kara marka aragtidiina ka dhiibta Spider-Man sidii laga filayo sameeyay maalinkiisii koowaad 33 karoor ilaa 4 karoor ayuu ku bilowday sida dabcan haatan officialka shabakada box office Hindiya shaaca ka qaaday marka waxay ka dhigan tahay filimka Marvel iska leedahay Hindiya wax taariikh ayuu ka sameeyay day one saaxiibada qiimaha badan filimkan xiisaha badan sidoo kale waxyaabo aadka loo amaano waxay tahay inuu soo celiyo daawashadii waalida ahayd oo ay taageerayaasha u qabeen ama jaceylka u qabeen dhanka tiyaatarka maadaama la arkay in si waali loo buuxisho dhammaan tiyaatarada kala duwan ee Hindiya shalay galinka hore iyo galinka dambe si gaar ah markii loo fiiriyo Bombay ayuu wuxuu ku garaacay filimkii Surya Vansh maadaama Spider-Man Bombay uu ka soo xariyay ku dhawaad 5 karoor halka dabcan Surya Vansh uu ka soo xariyay 3.45 karoor oo feestadii Diwali la daawaday Delhi markii la fiiriyo Spider-Man wuxuu ka soo xariyay 3.36 karoor Surya Vansh wuxuu ka keenay 3.25 karoor saadirtay marka filimkan Hindiyo idil ayuu qabsaday saaxiibada qiimaha Spider-Man markii aan filim lacagta uu soo xariyay hadii la kala qaado lacagta ugu fiican wuxuu ka soo xaray dhankaasi koonfur Hindiya sida la isku raacay filimkan lagu ma gaari karo koonfur Hindiya estimate-ka waxay muujinaysaa ilaa ay dabcan 25 karoor ku dhawaad koonfur Hindiya ka soo xariyay luqadaha kala duwan lagu daawaday qaybta afindigan waxay u badantay 7 karoor ilaa 8 karoor inuu soo xariyay marka waa power of Saudi ayaa leeyahay saameynta uu ku leeyahay filimkan koonfur Hindiya iyo jaceylka uu qabeen banaanka ayay soo dhigeen markaana soo qaadan day 2 maalinka labaad maanta oo jimcaha sida ayuu ku furmay filimka Spider-Man dabcan waxaa la leeyahay haatan hoos u dhac ma sameynaa sababtoo ah filimkan subaxda ayuu ku furmo 40% dabcan waa guul kale oo muuqato maalinka labaad filimkan waxaa laga rajaynayaa 20 karoor ganacsigiisa inuusan ka hoos marinin xarunta weyn ee Bombay wuxuu kaga furmay 48% dhinacaas Delhi markii la fi National Capital Regions kan wuxuu kaga furmay 32% Biyon ama Pune wuxuu kaga furmay 46% waa sambal aan soo qaadanayno magaalooyinka Hindiya ugu waaweyn dhinaca kale Bangalore wuxuu kaga furmay 15% Hyderabad wuxuu kaga furmay 53% Kolkata wuxuu kaga furmay 49% Ahmedabad wuxuu kaga furmay 31% Chennai wuxuu kaga furmay 22% laakiin dhankaas iyo Malayalamka xaruntooda Kerala ee Kochi laguma gaaro filimkan 78% ayuu ku furmay Spider-Man waan ka tageynaa waxaan diirad saarnaa filimka weyn ee Pushpa oo maanta soo baxay Pushpa Allu Arjun hogaamiyey waa big movie oo expectationka waxa laga filnaa wax weyn ay tahay maadaama 150 karoor qoliya cajaladaha qaybeen ku iibsadeen bal marka koowaad aan filana filimka maxaa tiyaatar lagu talagalay sida haatan officialka la soo daabacay saaxiibada qiimaha badan dhulka laga leeyahay dhankaas Andhra Pradesh iyo Telangana waa dabcan Telugu waxaa laga daawan doonaa 150 tiyaatar ayaa la saari doonaa wuxuu noqday filimka tirada ugu badan tiyaatar sanadkan la siiyo dhankaasi Karnataka waxaa laga daawan doonaa 140 tiyaatar Tamil Nadu waxaa diiwaan gashan 400 tiyaatar ayaa laga daawan doonaa gobolka Kerala waxaa loo qorsheeyay 200 ilaa 300 tiyaatar laakiin nasiib darro subaxan lagama daawan dhankaasi Malayalamka qaladkan waxaa iskala tiimka filimkan oo daahiyaan printiga ama cajalada halkaas inay geeyaan saadartay marka film ban indie movie oo la soo daahina cajaladihiisa ama farsamo xumo ka dhacay tiimka Pushpa laga hayaa qaladkoodana wuu sii badanaa saadartay marka wuxuu u dhacay
maalinta berite ayaa dhankaasi kale laga daawan doonaa waxayna ku tahay marka minus ay ku tahay tiimka filimka in maanta luqadda af Malayalamka filimka aan lagu daawan doonin dhinaca kale hindi inteeda kale tan 600 tiyaatar ee la saaray ku jirto qaybta af hindiga suuqyada caalamka filimkan waxaa laga daawan doonaa in ka badan 600 tiyaatar sida hadda officialka 3000 oo tiyaatar iyo ka badan dibad iyo dal ayaa laga daawan doonaa Pushpa taasi dabcan waa waxa lagu talagalay filimkan bal markaan aan soo qaadano subaxdii hore saakay sidoo ku furma filimkan saaxiibada qiimo waxaan fiirin doonaa wajiyada kala duwan lagu daawan ama luqadaha kala duwan number 1 priority waxay afterluguna sidii laga filayay si ka weyn ayuu ku furmay sababtoo 83% ayuu ku furmay fasaxana ma jiro maantana waa jimco oo gelinka hore shaqo jirta darteena filimkan wuxuu ku furmay 83% Hyderabad wuxuu sameeyay wax waali ah 99% showga garaaca subaxdii hore 814 tiyaatar ama show ayaa laga daawanaa dhankaasi markii aan fiirino saaxiibada qiimo badan Bangalore oo luqadda waxaan ka hadlaynaa afterlugu dhammaan magaalooyin kala duwan lagu daawanayo Bangalore wuxuu garaacaa 71% 647 tiyaatar lagu daawanaa xarunta Chennai afterlugu filimkan lagu daawanayna 51% kaga furmay 156 tiyaatar ayaa lagu daawanaa dhankaasi Vijayawada magaalada la dhahana 99% ayuu kaga furmay Warangalna kama liita 97% kaga furmay Guntur wuxuu kaga furmay 100% magaalooyinkan aan tirina waxay hoos imaadeen dhankaasi Telugu way sidoo kale Vizag wuxuu kaga furmay sida haatan diiwaan gashan 99% Nizamabad ama Nizam wuxuu kaga furmay 100% kaga furmay lama gaari karo marka Telugu markii la joogo wax waali ayuu sameynaa sida haatan diiwaan gashan dhinacaasi markii aan fiirno saaxiibada qiimo badan qaybta lagu daawanayo af hindigana sidoo ku furmay waa si fiican sababtoo 22% subaxda hore ku furmay aflaanta qaarkood Bollywood xitaa sidaan sanadkan ma sameyn Surya Vansh iyo tadab kaliya ka bilaawasho fiican sida hadda muuqato saadartay marka 22% kaga furmay qaybta af hindiga lagu daawanayo Bombay 32% ku furmay waa akhbaar wanaagsan laakiin tiyaatarada ku yar oo 121 show laga daawanayo Spider-Man meesha heesto Delhi wuxuu kaga furmay 23% Bunai wuxuu kaga furmay 62% Hyderabad wuxuu kaga furmay 20% 8 show kaliya laga daawanaa Calcutta wuxuu kaga furmay 12% Ahmedabad wuxuu kaga furmay 9% Surat wuxuu kaga furmay 19% sida muuqato overall si wuxuu ku bilowday acceptable oo la aqbali karo ayuu kaga bilowday dhankaas Bombay ayadoo waliba xal xataa Allu Arjun Bombay uu saxday maadaama xayisiin balan halkaas uu sameeyay oo uu Bombay booqday si dabcan filimka Pushpa wax xayisiin ugu sameeyay qaybta aftermilk markii aan fiirno wuxuu ku furmay 20% ayadan waa loo qaateen subaxdii hore sida hadda muuqatana Jinay ugu sareeyay filimkan 16% kaga furmay sidoo kale saaxiibada qiimo badan filimkan waxaa la rajaynayaa marka day 1 estimate hadda waxaa muuqato in uu keeni doono 50 karoor ilaa 60 karoor inta u dhaxayso laakiin waxaa 60 karoor meesha way ka baxday maadaama qaybta af Malayalamka filimkan aan lagu daawanin culays weyn ku tahay oo hal maalin collectionkiisa hoos u dhici doona waa qasab tiimka filimkana dabcan cilada iska leh Pushpa aragtidiina ka dhiibta sida waalida uu ku furmay iyo soo kale tiyaatar la saaray in la wadaagnay bal markaan aan soo qaadano sheekada filimka maxaa laga dhahay tiyaatarkii la aaday waa la soo daawaday waxaan fiirinaa marka qoryaha aflaanta ka faaladan filimka maxay dhaheen overall waxaa la isku raacay Pushpa waa good movie waa film wanaagsan excellent ma aan film heer sare ma aan waxaa la siiyay qiimeyntiisana 3 xidig ayaa la siiyay 5 xidig lagu qiimeeyo laakiin excellent ma film heer sare ma aan saadartay marka aan fiirina filimka Pushpa fariintiis waan iska ognay ciwaanka laga fahmi karaa filimka waxa la Pushpa The Rising wuxuu ka bilaabanaa Pushpa halka hoos markuu joogay ilaa meesha ugu sareysa markuu gaarayo waa part 1 part 2 haduu alid xagaaga damban waxaa lagu daawan doonaa awoodda ninkan uu yeeshay sida uu ilaashan doono iyo dhibaatooyin kala duwan oo la kulmayo focuska aan saarna qaybta koowaad wuxuu ninkan ku matalaa magaciisa waa Pushpa waxa directorka Sukumar marka hore dabcan waa shaqaale maalinkii qaata mushaar maalmeed qaata wuxuu ka shaqeeyaa dhanka kaymaha oo laga soo guro dhirta kala duwan iyo geedaha kala duwan kuwaas oo dabcan si sharci darro loo sii iibiyo sida guud waxaa ka muuqata marka kaynta ama doorka waxyaabaha sharci darrada ka socda kambaniyasha iska leh ayuu ninkan wuxuu ka qaataa nolol maalmeed heer wuxuu gaaraa Pushpa marka inuu co-owner noqdo oo wax ku yeesho shirkadda dabcan uu la shaqeynay kadibna asiga meesha awoodda la wareegay laakiin hal caqabada soo wajahayo nin deegaanka laga dambeeyo uu joogo awood badan oo lagu magacaabo Mangalam Sinu qof kale ma Sunil ayaa ninkan soo weeraray ninkan wuxuu isku dagaanaa saldanada ku aadan meesha ayaa ka talin doona markuu Sunil ka guuleystan waxaa soo bixi doona sarkaalka askariga awood badan ee lagu magacaabo Shikawat qof kale ma waa Fahad Fasil oo ku matalaya sarkaalka taliya doorka ama kaynta oo asigana weerar ku soo qaaday Pushpa sidoo isaga dhicin doona ee filimkan loo daawana dhinaca kale waxaa garab socota jaceelka gabadha u qaba Rashmika Mandana iyo qaabku dabcan jaceelkiisa ugu sheeganaya marka qaybta kood waxay ku saabsan tahay Pushpa shalay wuxuu ahaa shaqaale awooddu la wareegay iyo labada qatar ee soo wajahayso kaga imaanaysa dhanka Sunil iyo dhanka dabcan Fahad Fasil haddaba maxaa laga dhahay fariinta uu sameeyay ninka lagu magacaabo Sukumar ninkan waxaa lagu yaqaanaa fariimo adag oo waaqici ah inta badan uu ka baxsaday kaalintiisa laakiin waxaa leeyahay halka saac hore ayuu filimkan si holac u diyaariyay halka saac dambana xoogaa waxaa ka muuqata habacsanaan ka muuqato dhinaca kale director Sukumar waxaa lagu haystaa filimkan 3 saac inuu ka dhiga ma ahayn waxay inuu ka dhiga 2 saac bar kaliya waxyaabaha dayacaada uu ka bixiyo markaas Pushpa wuxuu noqon lahaa holac oo 4 xidig ay u qalmi lahaa haddaba waa filim wanaagsan
aan fiirina plus points filimkan uu leeyahay maxay tahay waa mid kamid bandhigyada ugu fiican uu sameeyay Allu Arjun magacaas ma xasuusan doonto waxaa ku xasuusan doontaa Pushpa marka filimkan daawatid bilow ilaa dhamaad filimka asiga highlight u ah awoodda uu soo bandhigay jirkiisa sidoo u bedel ninkan hadallada adeegsanaya aad iyo aad ku saameynta badan saameynta kale uu leeyahay shactirada markay noqoto iyo soo kale marka la fiirsho xitaa dabcan wajiga qamarjinimada uu matalay waa another level marka Pushpa waa filim kale Allu Arjun uu ku muujiyay sida uu talented actor u yahay wuxuuna kamid yahay actoorayaasha naadirka koonfur Hindi heestaan oo wax kasta sameyn karo dhinaca kale gabadha lagu magacaabo Rashmika Mandanna ayadana filimkan kaalin fiican ka qaadatay inkastoo dabcan doorkeeda uusan ahayn door saameyn badan waxaa ku soo jiidan doona ninka lagu magacaabo Sunil oo filimkan laadar ku matalay wuxuu qaatay shaqo fiican laakiin saaxiibada qiimo badan waxa leeyahay Pushpa waxaa ka maqan confrontation ama dagaalka dhexmaray actoore iyo dabcan laadar Sunil waxa leeyahay inta badan shactira lagu yaqaana filimkan wuu dadaalay waxaa ka fiicnaa leeyahay dabcan in la kana laadar kale awood badan oo Allu Arjun cagta u saaray markuu ka taqalus kadibna waxa imaanaya Fahad Fasil oo filimkan Fahad Fasil qaybaha ugu dambeeya soo galay waxa la ogyahay qaybta labaad loo diyaariyay oo ay labadu ku dagaalami doonaan marka Fahad Fasil qaybtiisa uu kooban yahay wuu ka baxsaday Sunilna kaalintiisa uu qaatay laakiin qof kale oo Sunil ka saameyn badan oo minaysan noqon karo Allu Arjun argagax gelin karo ayaa ku fiicnaa leeyahay in badan filimkan lagu soo daro isku soo wada duub actionka Pushpa inaba caadi ma ahan goobaha lagu duub waa realistic waa waaqici sida muuqato saadartay marka waxa la filimkan waa filim Allu Arjun daawadaashiis in badan ka gadmi doono sidoo kale dadka qaarna way daawan karaan laakiin filimkan excellent movie ma ahan sida haatan warar kordhac la sheegay 3 xidig la sii 3 xidig xitaa SNF way ku filantahay filimka Allu Arjun hogaamiyay laakiin culayska jira waxay tahay 3 saacadood dhibaato ah waxay ahayd marka 2 saac bar in laga dhigo waa arrin meesha ku jirta xibada qiimada intaasan ku soo ilaalina sheekooyinka maanta Jimcaha u baahnaa galin kor in la wadaagno waxyaabaha kale soo kordhawaan la wadaagi doona hadduu alla idmo ku saabsan Pushpa sar u kac uu sameeyo galabka iyo fiidka hadduu alla idmo iyo Spider-Man waxyaabaha uu la iman karo maalinkiisa labaad haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe inoo saar oo ku maasantiin daawashadiina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh